kulankani aqoon iswadaarsiga ayaa ku saabsanaa wacyigelinta bixinta canshuuraha iyo diiwaangelinta ganacsiga waxaana soo qabanqaabiyey wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabelle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayagoo horeyso ganacsatada ayaa waxaa si weyn diiradda lagu saaray ka hadalka bixinta canshuuraha muhiimadda bulshada ay u leedahay. waxa uu horeyntii halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada ka soo qayb gashay duqa magaalada Joor Saalax Mudee Cali waxayna si aad u soo dhaweeyeen bixinta canshuuraha gaar ahaan ganacsatada caasimadda Hirshabelle waxaan soo dhaweynayaa barnaamijkan wacyigelinta aqoon iswadaarsiga ku saabsan wasaaradda maaliyadda ee soo qaban qaabisay. waxaan leeyahay soo dhawaada maanta waxaan aad ugu faraxsanahay wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka Hirshabelle noo soo diyaariyay barnaamijka kan ee qaaliga ah bixinta canshuuraha. waxayna halkaas ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Fartuun Aadan Xeef iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe Madiina Cadow Colow iyo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe dhinaca amniga Maxamed Sugaal Cusmaan waxayna si aad uga hadleen muhiimadda bulshada ay u leedahay canshuur bixinta. maanta waxaa maxay isugu imaanay aqoon iswadaarsigaas wuxuu yahay in maaliyadda iyo looga hadlayaa in aniga talahan waxaan ku dari lahaa in muwaadin walba oo Hirshabelle u dhashay waxa waajib ku ah inuu bixiyo cashuurta ma aha kaliya waxa cashuurta laga qaadayo ganacsatada waa qof walba ee shaqeeya ee mishaari ah in laga jaro sistamiyo in loo sameeyo waa laga maarmaan mar haddii dawladdu jirto in cashuur la qaado si cashuurtaas amniga loogu sugo arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada wadooyinka iyo korontada iyo biyaha iyo dhammaan baahida arrimaha bulshada wax looga qabto. idoo mas'uuliin fara badan ay ka hadleen goobta ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka dowladda wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Saacid Maxamed Nuur Saacid Boris oo kula dardaarantay bulshada in ay bixiyaan canshuurta si ay horumar u gaaraan. dadka waxaan hadda si fiican rabaa inaan ula hadlo odayaasha dhaqanka iyo deegaanka golo deegaana la sameeyna odayaala maar dadkii soo xulaay odayaashii waxa la rabaa sacabka waxa u tumaysaa in horumar la gaaro ha u tumin qof wuxuu jecel yahay. ugu dambeyntii waxaa qodbooyinkii soo gabagabeeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdulqaadir Abuukar Karraani. haddaan isla xisaabtamin wax soconay ma jiraan in la kala xishoonin waxaan hortiin ka balan qaadinaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba in wasaaradda maaliyadda system dhab ah ee dabagal leh ee meel loogu bixi karin inaan macna diyaar u nahay. Abuukar Maxamed Baadle warbaahinta qaranka caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar.